taliyaha ciidamada badda ee dalka Soomaaliya Cabdixamiid Maxamed Dirir ayaa ku eedeeyay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble inuu guri raaxo ah ka dhisayo dhulkii ciidamada badda Soomaaliyeed ay lahaayeen. General Dirir oo warbaahinta kula hadlay goob xeebaha xamar ka mid ah oo dhisme ka socday ayaa sheegay inaysan aqbalaynin in ciidanka dhulkiisa la boobo. nasiib darro ah oo ciidankii badda iyo difaaca xeebaha ee xoogga dalka Soomaaliyeed ay dhabar jab iyo moral jab ku noqotay in dhulkoodii ay boob ay ku dhisanayaan madaxdii qaranka ugu sareysay oo ugu horeeyo ra'iisul wasaaraha qaranka Maxamed Xuseen Rooble. waxa ayaan darro ah in la hunguriyeeyo hantida muguurtada ee u hartay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. waxaan leenahay wax soconaya maaha, wax la qaadan karana maaha, wax la aqbali karana maaha in madaxdii dalka ugu sareysay oo ra'iisul wasaarihii wadanka ugu sareeyay uu boob raba inuu ku dhisto guri shakhsiya oo deegaan ah inuu ugu dhisto meeshii loogu talagalay in looga dhiso xafiisyada ciidanka badda ee xoogga dalka Soomaaliyeed. waxaanu madaxda qaranka iyo shacabka Soomaaliyeedba u sheegaynaa in aanan aqbali doonin in hantidii ummadda Soomaaliyeed ee ciidanka aanu u dhaaranay in boob lagu dhisto. waxaanan marxaanti marnaba ka noqonayn, aanan qaadanayn in mar walba ama la isugu cagajugleeyo ama la yiraahdo xil baa laga tagayaa ama xil baa la isaga qaadayaa haddaanu hadda ka tagayno xilka. waxaanu u dhaaranay inaanu dalka iyo diinta ilaalino. waxaanu u dhaaranay inaanu hantidii ummadda Soomaaliyeed aanu ilaalino. waxaanu u dhaaranay in dhiigayaga u bixino oo u shubno inaanu ummadda Soomaaliyeed difaacno. inta aanu u dhaaranay ka been sheegi mayno, marxaanti ka noqon mayno meesha annagu aanu xukunno ciidanka badda iyo difaaca xeebaha Soomaaliya ana mas'uulka marxaantina ka ahaan mayo in dusheeda wax lagu boobo mana ka yeelin. cagjuuleen baan qaadanayn, xilku waa meerto haddaan ka degaynaa, laakiin inta aan joogo lagama yaabo in lagu soo xadgudbo. hanti qaran leedahay in la boobo, shacabka Soomaaliyeedna in la boobo, waayo annaga dhiigayaga u hurnay. dhanka kale General Bashiir Maxamed Jaamac Bashiir Goobe oo isna ka hadlay arintani ayaa sheegay inaysan sida uu taliye Dirir wax u sheegay u jirin sida uu tilmaamay. waxa uu sheegay inuusan dhulka uu dhismuhu ku socdo aysan badul ciidan ahayn. dhulkaas waa dhul annaga naga dambeeya oo yar, waana bad xeeb waay, maana dhul ahaan u ahaa ma ahayn. dhulku wuxuu ku dhammaadaa guriga anigu aan deganahay ayuu ku dhammaadaa dhulka rasmiga. waa dhul ka hor yaalay xeebta iyo safaaradda Turkiga dhabarkeeda dambe meel u dhaxaysa ku yaalla. waa ogaanshahayga iyo taariikhda aan dalkan ku aqaano, horta dhulkaas dhul ciidan ma ahayn, ciidan ma lahayn. marka hore waxay ahayd dekeday ka tirsanayd, dhul caadigu iska ahaa. waa tii dhulkii dekeda loo qaybiyey safaaradda Imaaraadka iyo safaaradda Turkiga. qaybta safaaradda Turkiga ay degan tahay waxaa waagi hore ku ooli jiray taliska ciidanka badda Soomaaliyeed. hase yeeshee xukuumaddii kacaanka intii jirtay ayaa laga wareejiyey, lagana dhigay taliskii ciidanka badda Soomaaliyeed meesha hadda loo yaqaano Mariina loo yaqaano, oo aad wada garanaysaan oo degmada Kaarana. xafiiskii taliyaha iyo taliskii ciidanka badda Soomaaliyeedna halkaas ayuu ka yaala, asagoo guri 3 ilaa 4 dabaqa dhul weyn haysta ayuu ku yaala halkaas degan. taariikhda marka horta sidaas weeye.